kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal barnaamijyadan waxaanu si gaar ah uga eegaynaa riyada ay ku rumowdo TPLF miyay u suurageli doontaa mise waa laga hor istaagi doonaa. madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo wareysi gaar ah bixiyay ayaa si gaar ah waxa uu sheegay riyooyin ay leeyihiin maamulka TPLF iyo sidoo kale Tigreegu taas oo ay ku riyoodaan. Mustafa Cagjar ayaa waxa wareysi uu siiyay AB oo uu sheegay in kooxda TPLF ay leedahay laba qorshe oo kala horeeya kuwaas oo kala ah in ay abuuraan Itoobiya oo ku dhisan rabitaanka TPLF isla markaana faa'iido ugu jirto kooxdaasi oo kaliya uguna adeegaan sidii 27 sano ee la soo dhaafay. sidoo kale waxa uu sheegay in haddii ay taasi u suuroobi weydo ay deegaanka Tigreegu ay goosan doonaan ay ka go'i doonaan dalka intiisa kale waana laba qorshe oo ay iyagu ku riyoodaan. isagoo arrintaasi ka hadlaya ayuu xusay dhibaatadii tacaddigii 27 sano ee la soo dhaafay una yiri riyada kooxda argagixisada ee TPLF ee ah in dadkeennu dib ugu noqdaan dhibkii ay hore ugu geysteen marnaba ma aha mid u rumoobaysa ama u suurogeli karta taas oo ka dhigan in marnaba riyada aysan heli doonin riyadooda oo aysan u rumoobi doonin. TPLF qorshaheeda ugu ballaaran waa arrinta la xiriirta in ay dagaalo kaga adkaadaan maamulka Itoobiya iyo sidoo kale dowladda taas oo ka dhigan in ay doonayaan in ay ku dhawaaqaan go'aan halis ah. Tigreega ayaa u kala qaybsamay dhowr qaybood waxa ay aaminsan yihiin qaarkood inta badan weeyaane inay noqdaan maamul madax bannaan oo aanu shaqo ku lahayn Itoobiya. sidoo kale qaarkood ayaa aaminsan in ay noqdaan in ay maamul gooni u istaagaan. sidoo kale qaarkood waxay aaminsan yihiin in TPLF la tirtiro qaarkoodna dowladda in la taageero. laakiin riyada ugu weyn ee ay aaminsan yihiin TPLF waa in ay noqdaan maamul madax bannaan oo iskood u taagan kuwaas oo aanu qayb ka noqon maamulka. dagaalo culus ayay dowladda kula jiraan waa ay la dagaalamaan ama xaro waxa ayna qorshahooda inta badan ku saleeyaan in dagaalkoodu ay soo gabagabeeyaan. hadda dagaalka ugu weyn waxa uu ka socdaa waqooyiga Itoobiya waxaana ay kula jiraan ciidamada militariga Itoobiya taas oo ka dhigan in deegaanka ay dhibaato ku hayaan. marka loo eego Mustafa Cagjar tiro dhowr jeer oo hore ayuu u hanjabay TPLF ciidamo Soomaaliyeed ayuu u diray dagaalka oo TPLF la dagaalamay laakiin waxa ay noqotay mid u qormaysa maadaama Tigreegu ay Soomaalidu taageeraan. Tigre Soomaalidu aragtiyo bay siiyaan oo waxay yiraahdaan waa in aad ka go'daan Itoobiya oo aad taageertaan inta kale ee soo hadhay. laakiin Mustafa Cagjar iyo maamulkiisa ayaana marnaba maamulka TPLF taageerinaya Tigre iyaga oo taageersan maxarada. ku dhawaad hal sano markii waa ugu horeysay ay colaad ka qaraxday waqooyiga Itoobiya ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa maxarada ayaa toddobaadkan xoojiyay weerarada ay ku hayaan goobaha ay ku sugan yihiin TPLF. maanta waa maalintii afraad iyo markii ay ciidamada Itoobiya bilaabeen duulaanka cusub iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cirka kuwa lugta gawaarida dagaalka weeyaane waana faa'iidooyinka hadda ay ku doonayaan in dib ay u soo celiyaan magaalooyinka ka maqan. TPLF waxa ay qorshaheedu yahay in ay duulaan culus ku qaado waqooyiga Itoobiya oo ay kaga adkaato maamulka laakiin lama oga tilaabooyinka xiga iyo waxa imaan doona maadaama qorshahooda ugu ballaaran uu yahay sidii ay kaga adkaan lahaayeen qorshaha ballaaran ay ku doonayaan in maamulka Abiy Ahmed ay meel ku saaraan. TPLF waxay ka soo askuntay Tigre waana maamulka la aaminsan yahay ee ka jira gobolka Tigre taas oo ay ku doonayaan inay ku maquuniyaan awoodda. bulshaweynta gobolka Tigre ka soo jeeda oo ah qowmiyad weyn oo ka mid ah qowmiyadaha ugu awoodda badan ayaa 30 sano la soo dhaafay marka waa wixii ka horeeyay 2018 waxay maamulayeen guud ahaan talada Itoobiya iyaga oo aragtiyo badan qayb ka ahaa aragtiyada ku dirsanayay qaybo badan oo kamid ah maamulka waa maamuladii hore u jiray. marka laga tago Abiy Ahmed oo 2018 xafiiska yimi wixii ka horeeyay waxay ahaayeen awoodda koowaad ee wadanka Itoobiya laakiin barnaamijyo waaweyn iyo sidoo kale dibadbaxyo aanu joogsi lahayn oo ka dhacay Itoobiya ayaa sababay in talada laga tuuro oo ay dib talada ay u qabtaan maamulka Oromada oo Abiy Ahmed uu ka soo jeedo. Tigre hadda wax dowladda ma laha laakiin waxay u dagaalamayaan si qowmiyad iyo aragti ah waxaana ay qorshahoodu yahay in ay maamulka Abiy Ahmed meesha ka saaraan. laakiin ujeedka ugu ballaaran ayaa lagu tilmaamaa in ay doonayaan in ay talada qabtaan sida Mustafa Cagjar uu sheegay. labada riyo ee hadda uu sheegay Mustafa waa labada riyo oo ay TPLF ku riyoodaan midkood inay helaan laakiin uma suuragelayso ay siyaasiyiinta qaar aaminsan yihiin. aragtidaas waxaa la tilmaamay inay tahay tan ugu ballaaran oo ay doonayaan Tigreegu in ay maamulka Itoobiya la wareegaan oo ay talada ka tuuraan Abiy Ahmed kadibna ay dib ugu soo laabtaan haddii ay qayb ka tahay ama ay ku doonayaan in taladu ay qabtaanna ay saameyn ku yeelan karto noloshooda.
waxa ay dagaalo kula jiraan sanad iyo kasii badan maamulka Abiy Ahmed ciidamadiisa militariga ama xarada. sidoo kale Tigray iyo Amharo waxa ka dhaxaysa cadaawad soo jireyna oo aan dhamaad lahayn marka loo eego dagaalada hadda ay ku jiraan. Amharo waxa ay ka qayb qaateen duulaankii lagu qabsaday gobolka oo dhan waa Tigray iyo magaaladiisa caasimadda ee Maqal, halkaas oo ay ku dileen tacadin ay u geysteen bulshooyinka gobolka Tigray ka soo jeedo, iyaga oo sidoo kale boobay bakhaarada ganacsiga iyo wixii yaala oo dhan waana ay qaateen. laakiin hadda waxa Abiy Ahmed uu sheegay inuu ka takhalusi doono. Baarlamaanka Itoobiya ayaa waxa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in ururka TPLF uu yahay urur argagixiso caalami ah oo ka dagaalamo gudaha dalka Itoobiya, kaas oo ay ka soo horjeedo dowladuna ay amartay in meesha lagu arko lagu toogto xubin walba oo ka tirsan. laakiin markaa kadib Tigray ayaa si toos ah ula midowday TPLF, waxaana markiiba ay bilaabeen dagaalo ka dhan ah maamulka dowladda. Abiy Ahmed hadda ayuu xukunka dib ula wareegay, isbuuc ayuuna hayaa oo waxay ahayd Isniintii la soo dhaafay markii uu dib ula wareegay xilka. laakiin waxa wajahaya ama uu la kulmi doona caqabado ballaaran oo ay ka mid tahay burburinta TPLF oo ku qaadan karta waddo ballaaran iyo sidoo kale waqti dheer. inkastoo ay adag tahay in TPLF la burburiyo, haddana waxa uu isku dayayaa in uu ka adkaado oo meel saaro. laakiin aragtidaas ay dadku qaar ku tilmaameen mid aan u suurageli doonin Abiy Ahmed waa haddii uu ku sii dhaqaaqo. 5 maalin ayuu dagaal ka socdaa waqooyiga Itoobiya, waxaana la soo warinayaa in dagaalkii ugu dambeeyay ama sidoo kale xaaladii ugu dambeysay hadda ay doonayaan in TPLF laga adkaado. waayahay markan haddii aynu eegno Ahlusunna wal Jameeca dhankooda, wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka ciidamadii Ahlusunna wal Jameeca ay isaga barakaceen ama isaga baxeen guud ahaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, taas oo ay dhawaan la wareegeen ciidanka Ahlusunna kadib markii ay si rogaal celisa gobolada dhexe u qabsadeen. ciidamada Ahlusunna wal Jameeca oo wata gaadiidkooda dagaalka ah ayaa lagu soo waramayaa in saakay ay faaruujiyeen xarumihii ay ku sugnaayeen ee gudaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana ay gaareen deegaano dhaca xadka kala qaybiya labada gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud. ila dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay oo inoo sheegay in ciidamada ay halkaasi ka samaysteen kastam cusub oo ay gaadiidka ugu qaadi doonaan lacago canshuura. ma cadda ilaa hadda sababta ka dambeysa in Ahlusunna ay dib uga baxdo degmadaasi oo dhawaan ay si nabdoon kula wareegtay. wararka ayaa intaa ku sii daraya in waa kastamka ugu sugnaayeen ciidamada Ahlusunna ay haatan dib ula wareegeen maamulka Matabaan oo ka bilaabay qaadista canshuurta. weli ma jiraan dhinacyadu wax war oo ka soo baxay oo hadal ah dhinaca saraakiisha Ahlusunna wal Jameeca iyo maamulka degmada oo ku saabsan arrintaasi. dib u gurashada Ahlusunna wal Jameeca oo dhinaca degmada Matabaan ayaa ku soo aadaysa iyada oo haatan xiisad culus ay ka taagan tahay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud, taasi oo maamulka Galmudug uu abaabulayo qorshe ballaaran oo uu ku doonayo inuu kaga adkaado maamulka Ahlusunna isla markaana uu ka saaro degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. laakiin ma muuqato dadaalo uu ku doonayo in mar kale dib ay ku midoobayaan oo ay qorshahoodu yahay in ay dib mar kale Ahlusunna wal Jameeca looga saaro Galgaduud. lama oga tallaabada xigta, laakiin qorshihii ugu ballaarnaa qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa ka socota magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah Galmudug, halkaasi oo la doonayo in maamulka Ahlusunna wal Jameeca looga qaado duulaanka dhan ah. guud ahaan saxbiya halka ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamij wareedkeena. fadlan muuqaalkan like saaro, sheergale saxbada kale gaarsii wixii aragti aad qabtana qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa. sidoo kale janaalkeena subscribe dhow janaalka furo ama gambaleelka furo tan iyo qaybteena kale. nabadgelyo.